dagaalkan jihaankii ama maxaa lagu jihaaynaya dagaalkan ama sidee ay jihadistay dawladda dhexe ee Soomaaliya dagaalka Daacish Puntland iyo soo kale Puntland yaana dhaxna Daacish dhexmaraya maxaa dawladda dhexe ee Soomaaliya uga qorshaysan ama maxaa sababay iyadoo oo ay jirto in ururka ka dagaalamaya koonfurta Soomaaliya ay si aad iyo aad xoog u saaraan xitaa in wadaagsooneen mararka qaar in qaar kamid maamul goboleedyada Soomaaliya qaar kamid dawladdu ay federaalka weerar ku qaado cilmi toos loo geeyay. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawaad saaxiibayaal maqalka shirkadda Korontada Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa dawladda maqalka meel gaarsid aad iyo aad saaxiibayaal ku mahadnaqay meel kasta dunida fiidka joogtaan waxaan muddo ku dhow 3 bilood mise adigu adlist ilaa iyo adigu wax ku qiyaas karnaa muddo ku dhow adoo 4 bilood bas ka dheh si toos ah sameeyaan soo fadhiisan saaxiibayaal ilaahay mahadi ilaahay bas ku soo keenay ilaahay bana suuro galiyay in mar labaad bartan ku kulana saaxiibayaal soo dhawaada maqaalka shirkadda markii Korontada Soomaaliyeed tahay waxaan ka codsanaa saaxiibayaal inaad maqaalka meedheer gaarsan ilaahay idinkiisa waxa rajeenaya kulanka inta dib isku soo noqonay kuwan dib u kala taginaan ilaahay naga dhigin waa faantay soo maaha saaxiibayaal muddo dheer ka baan soo fadhiisan barteeda YouTube ee Awil Official iyo soo kala barteeda Facebook ee Cabdirasaaq Maxamed marka waxaan leeyahay soo dhawaada saaxiibayaal barteena hore aynu ka sii wadaan baqaadina waxa meey background-kan ama studio-ha halkana inta xasuusta in iska fogtahay xitaa hadalkii iyo magaaladaasay energy ayaa xitaa meesha ka baxay oo aan ilaawo madalaya basan saaxiibayaal way soo dhawaada ugu horeyntii waxaan ka codsanayaa muuqaalka meelheed gaarsan oo igu soo dhaweysaan inaan magaalada dib u soo noqday halkaas oo toos nooga daawan saxooyin barteen YouTube ee Awil Official soo kala barteen Facebook ee Cabdirasaaq Maxamed saaxiibayaal aad baan saaxiibayaal ku mahadcelinteeda ugu balaaran mahadceliyo way saaxiibayaal markii inta ka nimaadno waxaan doonayaa maanta ama caawa xilli kasto ay ku tahayba inaan dul istaago laba arrin aan dul istaaga saaxiibayaal oo muuqaalkan kaga hadlo waa point-ka koowaad waxa weeyaan san wada ogsoonahay ama san ka wada warhayno baalmihii ugu dambeeyay ama bishii ugu dambeysay ciidamada Puntland ee kala gedisan waxay dagaal kula jireen ururka lagu magacaabo Daacish oo magaraansaay ka dagaalamaya buuraha ee magaraansaay gobolka buuraha kamida Puntland kamida oo magaraansaay buuraha Almadow ayaa dagaal xoog galay ku dhexmarayay ciidamada kala gedisan ee magaraansaay Puntland iyo soo kale ururka Daacish ee halka ku jira hadaba sanu ka helay ama sanu wada aragnay saaxiibayaal waxa jira in badan aan dhowr jeer ama marar yaabo badan kala gedisan waxaan naga soo horbaxay waxaanu aragnaa in ciidamada Puntland ay guul gaareen oo baraha bulshada lagu soo bandhigay maxay ka dhigan tahay guulahaas soo kale dhinaca ka soo horjeeda ee IS ama Daacish aan raahne soo taqaanaan iyaguna maxay guul gaareen ama maxay tahay dagaalkan jihaankii ama maxaa lagu jihaaynaya dagaalkan ama sidee ay jihadistay dawladda dhexe ee Soomaaliya dagaalka Daacish Puntland iyo soo kale Puntland yaana dhaxna Daacish dhexmaraya maxaa dawladda dhexe ee Soomaaliya uga qorshaysan ama maxaa sababay iyadoo oo ay jirto in ururka ka dagaalamaya koonfurta Soomaaliya ay si aad iyo aad xoog u saaraan xitaa in wadaagsooneen mararka qaar in qaar kamid maamul goboleedyada Soomaaliya qaar kamid dawladdu ay federaalka weerar ku qaado cilmi toos loo geeyay magaalada Raaskambooni toos loo geeyay wadaagsooneen maxaa dawladda dhexe ama madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama ciidamada kala gedisan ee militariga Soomaaliya maxay tahay sababta aan dagaalka ay Puntland kula jirto ururka Daacish aan ugu lahayn qiimo aad u sii weyn maadaama wadaagsoonhay ururka Daacish inuu yahay urur adduunyada oo aqoonsan tahay inuu yahay urur argagixiso waa sida adduunyada aqoonsan tahay hadaba saaxiibayaal inta jirto point-ka labaad dul istaagay waxa jira maalmada shalay waxa soo baxay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada reer Somaliland oo taageero garab istaag u muujiyay ciidamada Puntland iyaduna maxay ka dhigan tahay muxuu yahay isu soo dhawaadka iyo cilaaqaadka Somaliland iyo Puntland dhexmari karo in wadaagsooneen inay haayeen qaar aan raahna 10 sano u dambeeyay ama kaba badiba adigu muddo badan imika dhowr iyo 10 sanadood ay ka jirtay colaad siyaasadeed oo u dhaxaysa labada system ee ka Somaliland ka taliya ama magaalada qadid Somaliland iyo sidoo kale maamulka Puntland ama maamul goboleedka Puntland ay haayeen laba magaalada system oo xagga siyaasadda isku haya labada arrin saaxiibayaal doo korantii dul istaago hadalka ayaan ku badiyay korantii waan idin raaligelinaya soo dhawaada aduguna dareenkaaga aragtida commentiga ayaad ugu wadaagi kartaa ka aragtahan ama ka dareen ahaan sin u aragnana halkan aynu ku faaqidi doonaa ilaahay idinkiisa ee waxa si naxariis la kaaga codsanaya muuqaalkan mid dheer gaarso aad iyo aad ayaa u mahadsantii waayahay saaxiibayaal aan ku bilaabo ee sin wadaagsoonhay bishii ugu dambeysay maamul goboleedka Puntland iyo sidoo kale ururka Daacish waxa dhexmariyay dagaal balaaran oo labada dhinac ah
oo ciidamada kala gedisan ee Puntland oo isku dhafa oo aduu noocyada kala gedisan ay la dagaalameen ururka Daesh soo kale aan wadaagsanay halkaas saraakiil badan iyo dad badan oo magac barnaamijyada qaarkood ay ku lahaayeen waxay doonaan bas doonaan magac hoos sameeyaan aan raacnay ay magaranayay ay halka ku dhaaween hadaba saaxiibayaal arinta aad iyo aadka ula la yaabka badan ee dagaalka ka soo baxay ama dagaalka laga barto waxay kamid tahay ama waxa laga bartay dagaalka waxa weeyaan inuu jiro inaan dawladda dhexe ee Soomaaliya aan wadaagsanay inay tahay dawlad iyadu isku sheegtay ama dawlad sheegtay in maamul goboleedka Soomaaliya ka jira inay gacanta ku hayso aanay ahmiyad siinin dagaalka u dhaxeeya Puntland iyo sidoo kale ururka Daesh iyadoo taas jirta saaxiibayaal ma jiro sabab ama wadaad reason oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wasayo sheegaan ay magaranaysa uga hadlay ama magaranaysa uu yiri dagaalkaas ama meel public ama meel bulshada isku soo baxday inuu garab istaago muujinayo ciidamada kala gedisan ee Puntland hadaba maxay tahay sababtu waxaan wadaagsanay bila ka hor dawladda federaalka Soomaaliya inay ku duushay qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyada hoostaga siibhaan maamulka Jubaland oo ciidamada laga dajiyay raas Kaamboon ciidamadaas dawladda Soomaaliya ay leedahay markii dambana maamul goboleedka Puntland uu jab xooggan u geystay hubka iyo rasaasta aan bartaa ka galharay hadda dawladdu waxay ku soo celisay ama dhowr jeer waxay sheegtay dawladda Soomaaliya inay tahay maamul goboleedka Jubaland inuu yahay maamul ka falaagoobay gacantii dawladda dhexe Soomaaliya hadaba saaxiibayaal iyada taas jirto oo ahmiyada siyaasadda dawladda Soomaaliya ay inta leegsinayso hadana ma jiro ahmiyad ay siisay dagaalka Daesh iyo Puntland u dhaxeeya sababta aynu halka u dul istaagnaa ama aynu halka uga hakanayna waxay tahay mar walba dawladda Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa ama waxay sheegtay in dagaal kula jirto ururo kamid ah ururo xaq jira oo iyadu la dagaalamayso oo ka dagaalamayo gobolada dhexe Soomaaliya waliba haddaan si kale u sii dul istaagno meelaha ay ciidamada dawladda Soomaaliya qabsadaan bilayar kadib hadana waxa la wareega isla ururkii ay iyagu ka qabsadeen hadaba maxaa laga baran karaa maxay tahay maxaa ku dhex jira dagaalka Daesh iyo Puntland u dhaxeeya iyo dawladda dhexe Soomaaliya doorka ay ka qaadatay halka boinka waxa rajeynaya saaxiibadeena faanteen idinku commentiga aad nugula wadaagi doonto mal dareenkiina iyo aragtiina si idin la muuqanayso wayhay aan dul istaagayadana maalmada shalay tahay waxa jira qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland oo iyaguna taageeray ama taageero u muujiyay sida xildhibaan Maxamed Abiib oo kamid ah ciidamada Puntland ee la dagaalamaya ururka Daesh oo ku jira buuraha silsilada gulis qayb kamid ah sidoo kale silsilada buuraha Almadow lagu magacaabo oo ah meel aad iyo istiraatiiji hadaba maxay tahay sababta aanay u daneynin dawladda dhexe ee Soomaaliya ilaa imika arrimaha dagaalka halka ka socda iyadoo istiraatiijiyada inta leeg qayb kamid ah Soomaaliya wasay iyagu sheegaan dawladda dhexe Soomaaliya say sheegto in Puntland maamul goboleed kamid ay tahay ama maamul goboleed kamid ay tahay in jirtay aan jirin magaranaysa sabab ay ahmiyad gooni ama ahmiyad gaar ah u siisay dagaalka halka ka socda si kastaba aad saaxiibayaal xildhibaanada qaar ka mid ah Soomaaliya taageeray waxaad moodaa soo dhawaasho xagga siyaasadda oo dhaxay Puntland iyo Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay soo carfay iyadoo bulshada kuwada baraha bulshada isticmaala gaar ahaan aalada TikTok ay aad iyo aad u taageereen fikradda ama aragtida ah in magaranaysa ciidamadaas ay la dagaalamaan ururka ka soo horjeeda Daesh si kastaba aad saaxiibayaal waxaad iyadana dareemay markii dhaxal laga garnaa caws soo dhawaansho ah oo ka dhaxeeya dadka reer Puntland iyo soo kale reer Soomaaliland oo ay magaranaysa ahaa siyaasadda qaar isku hayay 16 sano ama 17 sano ama 15 sano u dambeeyay arrinahani si kastaba aad saaxiibayaal adiga si kula muuqata dareenka gaartada nabada commentiga faalo noogu soo dhiib aad iyo aad baad mahadsantihiin